duqa degmada Beledweyne Cumar Ibrahim Baadi oo u waramay TV-ga bulshada ayaa ka dalbaday ganacsatada magaalada Beledweyne inay bixiyaan lacagaha cashuuraha oo maalinta Sabtida ee soo socota lagu wada in si rasmi ah loo bilaabo. أولا إلهي سبحانه وتعالى مع الإسكالة waxaan u malaynayaa maanta waxay soo booqday TV bulsha marka hore waa salaamaya baahda bulsha waxaan rajaynayaa insha Allah taala inaan bilaabno sabtiga soo socdo cashuurta bariga oo magaalada laga qaado waxaan rajaynayaa in mataqaanaa shaqaale oo nadiif ah u sameeyno waxaan rajaynayaa in mataqaanaa dadweynaha degan degmada Beledweyne ay si wanaagsan noo shaqeyn doonaan insha Allah taala wadan kasta waxa lagu dhistaa cashuurtiisa wadan kasta waxa lagu horumariyaa cashuurtiisa wadan kasta waxa lagu horumariyaa mataqaanaa dhaqaalaha asiga isku sawir socodtiiba magaalada Beledweyne caqabado badan iska haystay alxamdulillah hadda mataqaanaa caqabadii badnaa way dhamaanayaan wayna dhamaadeen wixii qaldana oo sixi doona insha Allah taala dadweynaha Beledweyne waxaan ka codsanayaa inay mataqaanaa nidaamkaas nala fuliyaan in mataqaanaa ay sheeg wixii qaldan ay noo sheegaan saa u wada saxno guddiga ganacsiga degmada Beledweyne iyo dhammaan dadweynaha ururada bulshada waxaan rajaynayaa wixii qalad ah ay noo yimaadeen santuuqyo baa meel dhignay santuuqyadaas mataqaanaa inay mataqaanaa wixii qaldaad ah ay arkaan ay ku soo ridaan annagana waxaan jecelnahay insha Allah wixii qalad inaan mataqaanaa isla markaas ka jawaabno waxa kaloo jirto santuuq la yiraahdo tala bixin waxay tala maskaxdooda naga sii karaan inay naga siiyaan tala bixin naga siiyaan wax wacyigelin naga siiyaan sababtoo fikradda aad ku jirto fikradda walaalka ku jirto inaan la iska wada faa'iideystaan doonaya horumarna waxa lagu gaaraa iswaraysi isku xirnaan iyo hadafkooda la hiigsado caqabadda markaas waa yaraanaysa ka horma karto waxaan rajaynayaa dadweynaha Beledweyne in had jeer inala soo xiriiraan telefoon noo soo diraan santuuqaas wax loogu ridaan haddii mataqaanaa ay sheeg takrifal ay ugu takrifal ay yihiin haddii yihiin mataqaanaa ay sheeg wax horumar oo anaga maskaxdaada ka baxsan ay noo soo jeedinayaan haddii tahay mataqaanaa wax kasta oo mataqaanaa qofka oo bulshada dhibayo in anaga mataqaanaa santuuqaas loogu soo rido maamulka degmada Beledweyne ayaa muddo ka badan 3 sano aan qaadeen wax cashuura waxaana maalmaha soo socda magaalada Beledweyne lagu wadaa in si rasmi ah uga bilaabato qaadista cashuuraha goobaha ganacsiga Maxamed Cabdi Sanay telefishinka caalamiga ee bulsho Beledweyne.